waxaan soo dhaweynayaa heshiiskaas waa uga mahad celinaynaa xasan sheekh maxamuud dawladdiisana waa ku garab taagannahay dagaalka khawaarijta lagula jiro iyo Itoobiya labadaba heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga runtii faa'iido badan ayuu leeyahay waxaan u arkaa heshiiska iskaashiga difaaca badda lala galay Turkiga inuu aad muhiim u yahay sababtoo ah madaxweynuhu wax walba uu isku dayay oo wadanka uu u difaaci karo bad iyo bari heshiiskana wuxuu noqon doonaa mid oo dabcan gundhig weyn u ah horumarka Soomaaliya balse waxa muhiim ah madaxweynahan inuu ku daro dabcan horumarinta xagga ciidamada oo dabcan oo hadda qayb ay horumarsan yihiin la tababaro qaybna ka noqdaan ciidamadu kuwa dabcan difaaca badda Soomaaliya qayb ka ah ayadaasna dabcan muhiim ay u tahay waxa kale oo muhiim ah kheyraadka badda ku jira sidoo kale in Soomaalida looga faa'iideeyo la tababaro xirfadda dabcan kii bad gali karana badda galo xirfadii la soo bixida kheyraadkii baddana waxaan u arkaa ayadana inay tahay muhiim heshiiskan dabcan wuxuu ka bedeli karaa in Soomaaliya badaheeda aan la soo haweysan maadaama aan leenahay badda ugu dheer ee Afrika dabcan ay tahay Soomaaliya kheyraadkaas dabcan indhaha lagu hayo Itoobiya waxaan ognahay maraakiib ay leedahay bad ma lahan dabcan Soomaaliya waxaan is leeyahay dabcan in la soo haweysan dabcan ay difaac lahaato xagga bari iyo badina la hormariyo aysan haweysasho dambe aysan dhicinba oo aan la soo haweysan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin magacaygu waa Cadaawo Faarax Cabdulle ku sugan degmada Gurceel maamul goboleedka Galmudug Soomaaliya heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga runtii faa'iido badan ayuu leeyahay waa heshiis taariikhi ah oo aan rajeynayno in wax badan ku soo kordhi doono Soomaaliya maadaama aan ognahay in arrimaha la iska kaashaday ay u badan yihiin dhanka badda oo aan ognahay in dalalka dariska ay nagu haayeen maxaa la yiraahdaa gacan togaaleysi badan ay dalkeena baddiisa ay ku haayeen marka hadda alliance-gaas Itoobiya maxaa la yiraahdaa aan la sameynay maxaa la yiraahdaa Turkiga oo haddana cusub waxaan rajeynayaa faa'iido badan yeesho mid dhaqaale iyo mid amnina inuu wax badan bedeli doono rajeynaa xilliga haatan lagu jiro waa xilli xasaasi ah waa xilli baahi weyn loo qabay iskaashi noocan ah waa xilli maxaa la yiraahdaa geeska Afrika ay ka jirto attack dhanka badda ah oo ku haya Itoobiya inagu hayso baddeena ku hayso marka inaan iskaashano Turkiga oo isa kaashano arrimahaas faa'iido badan leedahay sida hore u sheegay waxa weeye arrimo amni dhanka amniga faa'iido u leedahay waa salaamiya TV-ga qaranka magacaygu waa Cali Nuuriye waxaan ku suganahay degmada Gurceel gobolka Galgaduud waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa heshiiska taariikhiga ah dabcan dhexmaray Soomaaliya iyo Turkiga oo fulintiisii ay shalay bilaabatay waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud hirgelinta heshiiskaas waa heshiis wax ku ool ah Soomaaliya bog dahab u gali doona waa heshiis ku soo aaday xilli dabcan loo baahnaa wax badan oo ka bedeli kara waa istiraatiijiyad caalami ah oo lagula dagaalamayo kooxaha soo hunguriyay dalkeena haday khawaarij yihiin iyo hadii ay Itoobiyaan tahay intaba waa fariin loo diraayo kuwa Soomaaliya nacab waa fariin nooga timid walaalo Soomaaliyeed oo Turki la yiraahdo heshiis aad u taariikhi ah waaye waa heshiis wax ku oola bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Warsame waxaan boqolkiiba boqol soo dhaweynayaa heshiiska badda ee dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga la gashay madaxweynuhu waxaan leeyahay waa ku mahadsantahay ogtiin wayahanba madaxweynuhu wadanka guula silsilada isdaba jooga uu ku hogaaminay wuxuu ku bedeli karaa in badda ay macnaha nabad noqoto cadawgan hadda la dariska badda soo hunguriyay aysan hunguriyintooda ama rajadoodu aysan hirgelin badda amaana noqoto